magaalada Columbus Ohio sanadkan waxaa ka dhacay ciida Jareerweyne taas oo sanadkan si gaar ah loogu maamuusayay gabadhii ugu horeysay ee jareer ah ee xil ka qabata Mareykanka. inkastoo jareer aysan gudoomiye degmo ku lahayn magaalada caasimadda ah ee Muqdisho oo ah goobta kaliya ee Soomaali weyn la rabay inay cadaalad ka jirto. xafladda soo dhaweynta ee Shukri Cabdiraxmaan ee Columbus ka dhacday waxaa mas'uuliyiintii joogtay ka mid ahaa kaaliyihii hore ee madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. sidoo kale waxaa halkaasi joogay xildhibaan Shambare oo ka mid ah xildhibaanadii hore ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. waxaa goobtaasi xaadir ku ahaa gabdhaha aqoon-yahanada mas'uuliyiinta iyo qaar ka mid ah siyaasiyiinta dhammaantoodana waxay u dhowla cadeynayeen soo dhaweynta Shukri Cabdiraxmaan. xafladdaasi soo dhaweynta ahayd waxaa soo agaasimay ururka Tomorrow Promise oo ah urur sanad walba qabta dabaaldegyada Somali Bantu community. inkastoo jareertii halkaasi joogtay ay aad ugu dhowla cadeynayeen farxadda ay u qabaan walaasheena Shukri Cabdiraxmaan oo noqotay gabadhii ugu horeysay ee jareerweyne ah ee xil Amerika loogu doorto. munaasabadaasi waxaa ka hadlay Cabdi Sabtow oo ah kaaliyihii hore ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Sabtow ayaa khudbadiisa waxa uu aad ugu nuuxsaday ahmiyadda ay leedahay in dhalinyarada iyo dhammaan bulshada jareerta ah in ay kacaan isla markaasina ay ku daydaan Shukri Cabdiraxmaan oo noqotay gabadhii ugu horeysay ee gudoomiye degmo ka noqota Mareykanka. America provides all opportunities, but you have to be ambitious person, somebody who knows their vision, mission, and you have to have a goal. But you can't build a goal by yourself alone. You have to speak up in case you see ambiguity. You have to stay informed with your local leaders. And you also ultimately need to support leaders who represent your dreams. Just like our sister did, Shukri. We have seen her as the first Somali Bantu female elected in an office all in the United States of America, but it didn't come. When you pay attention very closely to what she said, very touching, very inspiring speech about her background. You have to allow others to succeed in order for you to succeed. And that is what God tells us. Help others, then God will help you. But the help is not only giving something to people. You have to give them your time. You have to give them your energy. You have to give them your voice. Shukri Cabdiraxmaan iyadoo qiireysan khudbad ay jeedisay ayay ku sheegtay waayihii cajiibka ahaa ee soo martay. I was admitted into the University of Maine at Farmington. Attending university was a challenge that allowed me to overcome my biggest hurdle. It was the perfect opportunity to do hard things if I set my mind to it. I worked incredibly hard to earn decent grades, even though I had all the odds against me. I survived 2 years of my 4-year education when the coronavirus happened, and I had to take online classes for the remaining 2 years of my university education. My family assumed since I was home, I had free time. I worked full-time as I was studying and helping my mother pay rent, helping my siblings purchase books and necessary items. I also participated in organizing and activism work in my community. When George Floyd was murdered, I organized a protest that turned out hundreds of people in my local town. I have been a fierce activist and advocate fighting for justice and for my community to have a belonging. I have been organizing and advocating since I was 17 years old. sanadkan Somali Bantu community waxay kaga dhigneed guul weyn maadaama gabar jareerweyne ah ee elected official ka noqota Mareykanka. Xasan Toob, Durdur Media, Columbus, Ohio.